speak English every day even if you are alone حتى haddii aad keligaa tahay making mistakes are part of the journey bay dhahaan khaladaadka la sameeyo waa qayb ka mid ah markaasi safarkan aad luqadda ku baranayso the food is delicious marka hore waxaad baratay ereyga delicious step by step kaas ku wadna assalaamu calaykum saaxiibayaal soo dhawaada kanaalkayga Maxamed Bedel muuqaalkan waxaan kula wadaagi doonaa 10 talaabo oo ku fududeynaya inaad barato luqadda Ingiriiska insha Allah taala kanaalkan waxaan ku soo gudbin doonaa 10 iyo tusaalooyin ku fududeynaya inaad barato luqadda Ingiriiska run ahaantii luqadda Ingiriisku waxay noqotay luqad cilmiyeed markaasi wax kasta oo cilmi ah uu ku qoran yahay sidoo kale tan qofka aan luqadda Ingiriiska aqoonin ay maanta ku adag tahay inuu la jaan qaado waqtigan casriga iyo adduunkan markaasi casriga oo qofka maanta English aan aqoonin ay ka dhigan tahay sida qof aan waxna aqrinin waxna qorin sidii la ahaan jiray 80meeyadii 70meeyadii dadka Soomaaliyeed ay ahaan jireen oo kale ayay markaasi ka dhigan tahay qofka maanta English aan aqoonin tabtaas oo kale ayuu ka dhigan yahay haddaba saaxiib waxaan kula wadaagi doonaa 10 talaabo oo ku fududeynaya inaad markaasi luqadda Ingiriiska aad barato intaana 10ka talaabo u galin waxaan u kala qaadaynaa dadka markaasi luqadda Ingiriiska baranaya laba qaybood labada qaybood oo markaasi kala ah qaybta koobaad waa dad bilow ah oo hadda luqadda baranayo oo markaasi hadda luqadda bilbilow ku ah iyo qayb markaasi luqadda wax ka garanaysa ama markaasi bareefadiyadii iyo meelihii luqadda lagu baranayay Soomaalida caanka ay ku ahaayeen soo dhigtay laakiin aan luqadda ku hadli karin ama aan fahmi karin haddaba muuqaalkan waxa uu ku socdaa dadka markaasi luqadda wax ka garanaya laakiin aanan ku hadli karin sidoo kale tan ay ku adag tahay inay markaasi luqadda fahmaan ama ay qoraan ama ay akhriyaan wadad yacni tusaale ahaan way garanayaan xoogaa Ingiriisi oo ay kula sheekaystaan laakiin markay qof luqadda u dhashay ku hadlaya ama muuqaal ama podcast ay daawanayaan way ku adag tahay inay markaasi luqadda ay si sax ah u barto ay ugu hadlaan oo markaasi ay luqadda fahmaan way ku adag tahay dadkaas oo markaa muuqaalkani ku socdaa oo la hadlaya ugu horeyn saaxiib waxa koobaad ee lagaaga baahan yahay ee markaasi talada ugu muhiimsan waxa weeye speak English every day ku hadal Ingiriiska ama luqadda ku hadal maalin walba maalin kasta adeegso maalin kasta luqadda adeegso haddii aad doonayso inaad luqadda markaasi ku noqoto professional waa in aad maalin walba adeegsato even if you are alone hatta haddii aad keligaa tahay waa inaad luqadda markaasi adeegsan karto oo ku hadli karto oo aad markaasi noqon karto qof aan u baahnayn saaxiibo inuu u yeedho qof luqadda u dhashay inuu u yeedho qof kale inuu practice markaa la sameeyo oo isagoo keligii intuu soo fadhiisto markaasi luqadii ku hadli karo speak every day even if you are alone ku hadal luqadda haddii aad tahay xataa keligaa it doesn't matter waxa khaladaad sameynayso no problem khaladaadkaas oo dhan ha u fiirsanin inaan khaladaad sameyno making mistakes are part of the journey bay dhahaan khaladaadka la sameeyo waa qayb ka mid ah markaasi safarkan aad luqadda ku baranayso haddaba waa talada koobaad ee ugu muhiimsan inaad markaasi luqadda si daily aad u isticmaasho si daily inaad markaasi aad luqadda u isticmaasho talada labaad waxa weeye learn in small chunks not big list luqaddan waxa jiro erayo waxa jiro sentenceyo waxa jiro chunks waxa jiro phrases waxyaabahaas oo dhan ha isku dayin inaad hal mar yacni wada barato oo hal mar erayo barato hal mar chunks barato hal mar phrase barato sentenceyo dheer barato yacni hal mar paragraphyo badan inaad xifdiso ha isku dayin farasti waxa isku daydaa inaad waxyaabo yar oo gaagaaban aad xifdiso tusaale ahaan inaad maanta oo kale xifdiso hal eray yacni intaad xifdin lahayd konton eray oodan hadhowtoole xasuusanaynin ama 100 eray intaad xifdin lahayd isku day inaad 5 eray xifdiso aad tusaale ahaan xifdiso 5 eray 2 eray 10 eray aad saas ku wado step by step kaas tusaale ahaan maanta waxa xifdinaysaa erayga delicious waxa isticmaalaysaa jumlad baad ku isticmaalaysaa marka waxaad odhanaysaa the food is delicious cuntadu way macaan tahay yacni hadda waxaad isticmaashay eray baad baratay and then haddana waxaad gelisay jumlad the food is delicious marka hore waxaad baratay erayga delicious step by step kaas ku wad marka tusaale ahaan xaafadda markaad joogto oo kale guriga markaad joogto waxyaabaha markaa agagaarka ka dhacayo kaleeto dadka xaafadda kula joogo isku day inaad wax kasta yacni markaasi English ku weydiiso isku day inaad wax kasta oo rabto inaad sheegto aad English ku sheegto sidaas marka wax ku fududaanayso inaad si by step aad ku barato luqadii oo markaas aragto adigoo heer fiican markaasi luqadda ka sii gaadhay qodobkeena saddexaad waxa weeye listen before you speak listen before you speak dhageyso luqadda before aadan hadlin inta aadan hadlin ka hor luqadda dhageyso
haddaba qodobkani waa very important weeyaan waxaana uu very important ku yahay qof kasta oo adduunka ku nool waxa uu maqlo ayaa markaasi kaga saameyn badan waxyaabaha kaleeto haddii aad in badan dhageysato English oo in badan podcast dhageysato oo in badan aad video dhageysato waxani automatically maskaxdaada ayay markaa ku saf gareysmayaan tusaale ahaan cunuga yarka marka uu luqad baranayo ama luqadda afkiisa hooyo baranayo cunuga Soomaaliga oo kaleeto hooyadii iyo aabihii iyo ciyaalkoodii iyo dadka xaafadda kula nool oo 90 ka ku hadlaya Soomaali buu arkayaa and then sida u dhageysanayo cunuga 5 sano 4 sano markuu gaaro isagoo waxa la arkayaa erayo ku hadlayo luqadiiba caadi u bartayba haddaba markaasi inaad dhageysato luqadda oo podcast dhageysato dadka luqadda ku sheekaysanaya dhageysato video daawato movies ama filmaana daawato waa very important weeyaan wax yaani la iska indhatiri karo oo sahlan maaha waa inaad mar walba aad luqadda aad dhageysato listening is the secret to sounding natural bay dhahan dadka markaasi bixiya talooyinka luqadda ku saabsan dhageysigu waa markaasi sir aad u weyn oo aad markaasi luqadda ku baran karto watch English videos podcasts and the movies daawo muuqaalada markaasi Englishka podcastiyada iyo filimada sidoo kale tana waxa isku daydaa inaad markaasi dadka siday u hadlayaan aad copy garayso dadka siday u hadlayaan inaad copy garayso qodobka afraad waxa weeye ama talada afraad shadow native speakers waa qodobka hadda aan sheegayay waxa weeye inaad markaasi copy garayso shadowing waxa la dhahaa inaad markaasi copy garayso oo tusaale ahaan waxa daawanaysaa nin British oo luqadda ugu hadlayo British accent ku hadlaya and then waxa isku dayaysaa inaad wax kasta oo ninkaasi uu dhaho aad siday tahay u keento tusaale ahaan wuxuu ka hadlayaa dhaqaale ka hadlayaa wixii wad qoraysaa ama wad xifdinaysaa korkaad ka qabanaysaa and then sidii uu ugu hadlayay sidii uu ugu dhawaaqayay sidii soundiga codkiisa uu dhigayay baad u dhigaysaa and then waxay sarkaysaa maalinta dambe adigoo erayadii aad soo xifdisay sidoo kale ugu dhawaaqayo qodobkeena shanaad marka waxa weeye learn whole phrases not just a word waxa lagu leeyahay waxaad xifdisaa jumlad dhammaystiran jumlad gaaban oo tusaale ahaan macna buuxa sameynaysa xifdi halkii aad hal eray xifdin lahayd tusaale ahaan waxaad rabtaa maanta xaafadaad joogtaa waxaad tiri niyow English maxaa lagu dhahaa qado English qada maxaa lagu dhahaa qof baad weydiisay kadibna wuxuu ku dhahay lunch qada waxaa lagu dhahaa lunch and then markii intii aad dhihi lahayd eraygaas kaliya aan bartay waxaad tiraahdaa maanta qadadu waa noocma tusaale ahaan maanta Soomaalida waa isgaranaynaa baasti bariis iyo maxaa la kariyay qadadu maanta waa noocma jumladaas inaad barato English ku barato ayaa kaaga fudud inaad yacni oo kaaga sahlan oo markaasi kaagana faa'iido badan inaad erayga qado kaliya aad barato tusaale ahaan intii aad oran lahayd maxaa lagu dhahaa English socod waxaad tiraahdaa English maxaa lagu dhahaa xageeda socota tusaale ahaan socod waa maxay walk laakiin haddii aad tiraahdo xagee u socota where are you going bay noqonaysaa xagee u socota marka haddii aad markaasi erayadaasi aad saa u barato oo maalin walba sentensiyada gaagaaban aad saa u barato waxaa hubaala inaad markaasi noqon doonto qof muddo yar gudaheed sentensiyo badan ku garanayo qodobka lixaad ama talada lixaad waxa weeye fix your mistakes waxaad saxdaa khaladaadkaaga sax ha isku dayin inaad markaasi waxyaabaha khaladaadka aad sameynayso aad isku daawato tusaale ahaan haddii aad markaasi aad doonayso inaad ku hadasho luqadda oo isku tiraado inta kamerada soo qaadato aad tiraado today I want to speak some English yani maanta waxaan rabaa inaan xoogaa English ku yara hadlo oo markaasi saragto adoo khaladaad sameynayo ha isku dayin marka inaad halka kaga hadho oo khaladaadkii aad sameynaysaa halka aad kaga hadho laakiin waxa laga baahan yahay inaad fix ku sameyso oo markaasi khaladaadkaagi aad saxdo waxay dhahaan khubarada markaasi luqadaha ee dadka Englishka iyo luqad kastaba kula taliyo sida loo bartana dadka markaasi baro waxay dhahaan don't stop speaking if you make a mistake finish your thoughts then repeat the sentence correctly waxay dhahaan ha joojinin oo khalad yar oo sameysay dartii ha u joojinin barashadii luqadda markaasi aad baranaysay iyo hadafkii markaas aad kala ahayd luqadda inaad barato qodobkeena toddobaad ayaan u gelaynaa qodobkan runaantii waa very important weeyaan one of my favorite weeyaan anigana sidoo kaleeto waxa weeye think in English yacni English ku fikir tusaale ahaan saaka markaad soo kacdo halkii aad oran lahayd saaka markaan soo kaco salaada subax tukado waxaan halkaasan tagayaa shaqadaasan qabanayaa and then waxaad ku fikirtaa waxaasoo dhan English yani instead of thinking in Somali think in English ku fikir
marka waxa ku sahlanaanaysa inaad markaasi jumlado si kooban u soo qabato ama caqligaagu markaasi maskaxdaadu ay ku sameysmaan jumlado English tusaale ahaan waxaad tiraahdaa maanta I am angry waan baahanahay it's beautiful day maanta waa maalin qurux badan yani mar walba think in English ku fikir qodobkaasi run ahaantii waa very important weeyaan talada sideedaad ee markaasi ku socoto dadka Englishka wax ka garanaya laakiin aan fluent ku ahayn ama markaasi uu dhibayo fahankiisa iyo sidoo kale taba ku hadalkiisa talada sideedaad siinaya waxa weeye learn pronunciation early luqadda inta aad markaasi ku cusub tahay ee aad markaasi si fiican aadan u baranin hadalkeedii iyo markaasi fahamkeedii pronunciationka ama markaasi sida erayada loogu dhawaaqo si fiican u baro one of the most important thing weeyaan halkan guys يعني inaad luqadda si fiican u barato oo markaasi يعني noqoto qof English fiican ku hadlaya ama wax kasto English fahmayo waxa ku xiran tahay dhawaaqa erayada inaad markaasi fahamto oo markaasi si fiican u barato waxay yiraahdaan dadka markaasi luqadda talooyinka dadka siiyo good pronunciation is more important than big vocabulary يعني pronunciation fiican oo aad markaasi si fiican erayadii iyo jumladihii iyo sentenceiyada ugu dhawaaqayso ayaa waxa uu ka fiican yahay boqol goor ka fiican yahay erayo badan oo aad xifdisan tahay يعني adigoo kun eray xifdisan waxa ka fiican oo kaaga faa'iido badan inaad markaasi si fiican aad u garanayso 10 eray pronunciation kooda ama dhawaaqooda aad u garanayso qodobka sagaalaad ay markaasi very important tiga muhiimka ah waxa weeye use technology as your coach يعني technology-ga oo isticmaal as your coach use technology as your coach oo isticmaal technology-ga ama waxyaabahan casriga ah ee teknolojiyada يعني sida macallinkaaga oo kale u isticmaal tusaale ahaan use like Google Translation oo kale isticmaal Google Translation yani wax badan buu ka caawinaya use ChatGPT oo kale isticmaal or yani waxyaabaha text to speech ka oo dhan oo hadaad text geliso qoraalkaaga dhigayo tusaale ahaan text hadaad geliso ama qoraal hadaad geliso codkaaga dhigayo kale ama markaas practice kula sameyn karo for example hadii aad la hadasho kale ChatGPT-ga oo ChatGPT-ga su'aalo weydiiso kale qaybta codka uu kula sameeyo practice uu kula sameeyo insha Allah muuqaal waan ka sameyn doonaa sida ChatGPT practice loola sameeyo marka very important waxa inaad markaasi teknolojiyada ka faa'iideysato oo aad markaasi noqoto qof update teknolojiyadana la socdo qodobka tobnaad waxa weeye be patient but consistency يعني waxaad ahaataa qof dulqaad badan sidoo kale tana consistency ku dadaalo one of the most important things oo adduunka la isku dhaafay waxa loo yaqaan consistency inaad wax joogtayso waad noqotaa qof yani waxaan aan ka xiisadin tusaale ahaan hadii aad maanta bilowdo barashada luqadda Mandarinka ama luqadda Chinese hadaad barato oo aad maalmaha ugu horeeya ni hao aad barato yani aad joojiso hadafkaaga ma gaaraysid you will not learn that language luqadaas ma baran doontid laakiin hadii aad consistency iyo hadaf leedahay oo markaasi luqadaasi maalin walba ay wax kaaga qorsheysan yihiin every new day aad markaasi wax ka baranaysid yani waxaad noqonaysaa qof muddo gaaban markaasi isbedel badan ku sameeyo marka waa inaad noqotaa qof markaasi dulqaad leh dadka markaasi luqadaha dadka baro ama talooyinka luqadaha ku saabsan dadka markaa u soo jeediyo waxay dhahaan fluency takes time يعني inaad noqoto qof fluency luqadda kuwa oo luqadda si fiican oo wacan oo qurux badan oo faahfaahsan oo kala dhigdhigan oo hadlayo waxay u baahan tahay waqti bay qaadanaysaa sidoo kale marka practice kuna waa waxa ugu muhiimsan in looga baahan yahay qof luqad baranayo maalin kasta waa inaad samayso 15 ilaa 20 daqiiqo oo practice oo luqaddaasi ku saabsan oo aad luqadda ku hadlayso oo qolintaas ku soo xidho aad markaasi luqaddaas si sax ah ugu hadlayso hadaba daawadayaal waxaan rajaynayaa 10 kaas qodob inay markaasi in anfaceen waxana ay kugu soo siyaadiyeen I think qodobadan oo dhan inay very important yihiin hadii aad dabaqdo hal qodob oo kamidana aad markaasi gaarayso heer isku filaansho luqadeed aad gaarayso aad iyo aad baa idin salaamaya waanigoo saaxiibkiin iyo walaalkiin Maxamed Bedel kanaalka subscribe saara sidoo kale tana muuqaalka inoo la garaya sidaa iyo nabadiino wassalaamu calaykum